kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar noo sii share garee sidoo kale haddii aad hore ugu xidhnaydna waxaan ka codsan inaad sii share gareysid saxibadaada la wadaagtid like nagu dhiirigelisid wax badan kama qaadanayso kaliya inaad halkaa taabatid isla markaana sii share gareysid aad mahadsantihiin haddaba codayn loo qaaday marka xidigo dhowr ah ayaa la tilmaamaya BBC-du iyadoo aftida ay qaadaysay marka in la kala cadeeyay xidiga ugu fiican toddobaadka loo codeeyay isla markaana xidigo dhowr ayaa ku tartamay oo wareega 32 rag fara badan baa ka gudbay ilaa iyo semi-finalkii quarter final ilaa iyo finalka rag fara badan baa ay markaas isku helay waliba weeryahanka ugu fiican baa la arkayba banaanka ayuu ku dhacay baa leeyahay haddaba xidiga Portugalska Cristiano Ronaldo iyo rag fara badan baa ku tartamaya isla markaana aftidan markaas iyadoo shabakada BBC Sport ay qaaday haddaba wareega 32 rag fara badan baa ku tartamay oo aan sahlanayn gudagali doonaa marka Kylian Mbappe iyo waliba Harry Kane baa isku arkayo sidoo kale Mbappe ayaa ka soo baxay isla markaana 58% helay Bale iyo waliba Del Piero is wajaheen iyaguna 32% markaas waa 27% ninka la yiraahdo Del Piero ayaa la yimid halka baaqiga kale Gareth Bale uu helay Lukaku isaguna 90% ayaa lagu garaacay isla markaana David Villa ayaa ka soo gudbay oo Lukaku waa la reebay sidoo kale Huntelaar Diego Costa iyo wajahayo Costa ayaa soo gudbay 66% Antonio De Natale iyo waliba Eden Dzeko ayaa wareega 32 isku wajahayo 63% ayaa lagu garaacay De Natale ninka la yiraahdo Dzeko ayaa soo baxay Thierry Henry iyo David Trezeguet ayaa iswajahay waxa laga hadlayaa garab lagama hadlayo weeryahanada tooska ee booska ka ciyaari jiray ayaa laga hadlayaa sidoo kale David Trezeguet iyo waliba ninka la yiraahdo Thierry Henry 97% waaba xasuuq markaasi dhaafay ayuu ku soo dhaafayo ninka la yiraahdo Trezeguet Zlatan Ibrahimovic iyo Shevchenko waa socon lahaa laakiin Zlatan nin kale oo ka dhibaato badan baa loo dhibay mushkiladiisu waliba 76% waa lagu soo garaacay ninka la yiraahdo Zlatan Ibrahimovic baa ka soo gudbay oo wareegga xiga u soo gudbay waa taqaana ninka la yiraahdo Alan Shearer iyo Thomas Muller ayaa is wajahaya markaana Shearer ayaa ka soo gudbay 77% sidoo kale Wayne Rooney iyo Michael Owen ayaa is wajahay Michael Owen waa xamaalan lahaa laakiin bahal kale ayaa loo dhibay Wayne Rooney isla markaana ninka xulka markaasi England uu goolasho badan bandhig cajiib la sameeyay 72% ayaa lagu xasuuqay Owen ninka Rooney ayaa markaasi ka soo talaabsaday Henrik Larsson iyo Mario Mandzukic Larsson ayaa 77% kaga soo gudbay waxaanu sheegayno dhamaantood waa markaasi codayntii ka dhacday wareega 32 marka xidiga dhowr ay ka qayb galeen waliba Patrick Kluivert iyo Francesco Totti Kluivert waa socon lahaa Melder waa tagi lahaa laakiin mushkiladiisu waxay ahayd in Francesco Totti uu isagu wajahayo 70% inuu ku soo gudbay Ruud van Nistelrooy Melder waa gaari lahaa ninkii markaasi United isagu ka soo ceeriyay ayaa hadana tartankan ka saaraya wadogtiino isnu Ruud van Nistelrooy iyo waliba ninka Cristiano maalmaha kamid ah tobarkii marka ay ku wada jiro markaas canuga ku oysiye marka ninkii Ferguson baa yiri canuga ma iga leexanaysa mise kama leexanaysa maxay tahay maxaad canuga ugu oysinaysaa Ronaldo isaga ooyay buu ahaa macnaha ilaa hadda iska ooyay marka waa ilmaarkana qof dadka qaar waxa jira in marka indha ku biyadla marka la taabtaba hore ka ooynaya marka isagu waa u dhashay ninka la yiraahdo Ronaldo hooyadiina way sheegtay wiilkaygu waxay tiri ooyay buu ahaa laakiin nin spirit ku dhan waba iska yariyayba haddaba ninka Ronaldo ayaa ka saaray marka sida United uga soo saaray buu hadana liiskan kaga saaraya Luca Toni iyo waliba Robin van Persie Luca Toni waa ninka waalna dadka waalay macnaha isaga u dabaaldigi jiray gacanta sida dhigi jiray markaas inta dhagtiisa u dhaweeyo waa waalinta amal qofka dhigi jiray marka gool ka dhaliyo dadka qaarna wuxuu fasaray isagu inuu leeyahay waan waalanahay laakiin Robin van Persie 90% ayuu markaas kaga soo gudbay Luca Toni waa la reebay Van Persie ayuu ku aaday nasiib daradiisa Karim Benzema iyo waliba Berbatov waxa maalan lahaa laakiin Benzema loo dhiibayo Benzema 66% ayuu kaga soo gudbay Klaus Melder buu aadi lahaa ninka xulka qaranka marka Jarmalku wuxuu qabto adoogayeen ninka Aslan Poland ka soo jeeda waxa reebay nin kale oo Poland isagu dhashay waana Lewandowski 78% Raul Gonzalez iyo waliba ninka Fernando Torres waxa la reebay Torres El Nino waa shaqaysan lahaa laakiin Raul waxa waaye wala soo reebay muhiimada
ninka Raula waa la garaacay xidigaha marka iyagu soo baxeen wareega 16 baa la isku helay 2-2 baa markaas iyagu isugu wajeen dalbiyaari Kylian Mbappe wareega 16 lagu reebay leeyahay dalbiyaaro ayaa reebay 65% buu ku reebay mataa dad badan iyagu ma yeeli doonaano fikirka xuleemaan waa lagu noqonayaa codaynta David Villa Costa ayaa ka soo baxay Costa waa la reebay Denzeko iyo waliba ninka Thierry Henry ayaa 92% isagu ku gudbay sidoo kale Zlatan Ibrahimovic iyo Shearer baa konton boqolkiiba kaga soo gudbay waliba si dirqiya Larson iyo Rooney ayaa 70% kaga soo gudbay ha ahaato Francesco Totti ninka la yiraahdo isaguna wax maalan lahaa Cristiano iyo wajahay isaguna 89% ayuu markaasi ku wajahayo hadaba 89% ayaa lagu leeyahay waxa Ronaldo ayaa kaga soo baxay Totti waa la reebay Benzema iyo Van Persie ayaa soo baxay Benzema halka waa lagu reebayo Raul iyo Lewandowski waxa soo baxay markaasi ninka Lewandowski 62% sidaas markay tahay wareega 8 markaas ayaa la isku wajahay ninka leeyahay dalbiyaaro David Villa loo dhiibay dalbiyaaro soo gudbay Thierry Henry Zlatan baa loo dhiibay Zlatan waa la reebay Henry baa soo gudbay ninka la yiraahdo Rooney iyo waliba Cristiano ayaa soo wajahay laakiin Rooney marka nasiib daradiisu makiinad gool dhalineed buu ku aaday ninkan gool markaas isagu makiinad buu ku aaday dhibaatadiisu 89% ayaa leeyahay isagu waa uu kaga soo gudbayo Robin goal ayaa lagu leeyahay Robin van Persie waxa lagu aadiyay Lewandowski isaguna waa la reebay Lewandowski waa soo gudbay semi-final ka baa la isku wajahay marka dalbiyaari iyo Thierry Henry baa isku wajahay Ronaldo iyo waliba ninka markaas Cristiano Ronaldo weyn ayaa isku wajahay Ronaldo weyn iyo ninka kale baa isku wajahay leeyo ha ahaato laakiin waa la garaacayo Cristiano ayaa soo baxay oo markaana reebay ha ahaato ninka Cristiano laacib cajiib waa soo gudbay Thierry Henry waa soo gudbay Dabiero ninka la yiraahdo markaas Cristiano isagu Henry buu ku aaday Thierry Henry Ronaldo ogtiino isagu nadiga kubadda cagta Madrid markii uu joogay waa sax isagu inuu ciyaari jiray garab waa sax inuu garab ka dagaalami jiray laakiin waxa ogtii mar walba isagu inuu ahaa laacib weerar afka hore garab warqaahana ku ahaado laakiin markii dambe sanadii ugu dambeeyay 5 sano ilaa 6 sano ugu dambeeyay Madrid wuxuu ahaa mid isagu weerarka isagu jooga garabka badana waraq ahaan uu kaliya u joogayo wuxuu ka faa'iideysan jiray mar walba dhaqaaqa masaaxada xidiga la yiraahdo Benzema waan hadda markii uu isagu baxay qof Benzema markuu soo baxo bogiska qof galaya ma jirin Hazard kama uu soo faa'iideysanayso ma aysan fahmin ninkaasi muddada yar ayuu garoon ku jiray sidoo kale ninka la yiraahdo markaas Vinicius Junior isaguna waa yar yahay waa wali Rodrigo Salameda marka xidig fahmaya oo marka uu ka faa'iideysto oo ninka Benzema marka soo baxo masaaxadiisa qof ka faa'iideysanaya ma jirin marka waxa leeyahay Cristiano ayaa marka hadda waxa uu isagu sidaas ku noqonaya weeryahanka ugu fiican 54% Thierry Henry buu reebaya marka weeryahanada ayaa laga hadlay kaliya hadii garbaal lama soo qaadan Cristiano dhammaan xidigaas inta uu qabsaday meel buu saaray baa leeyahay xubintan waa naga inta bishaaro dadweynow idinkuna bil khayr inoo dhaha waxaa la idinkugu bishaareynayaa macaamiisha sharafta leh ee dukaanka Macrad Maka carwatii ugu quruxda badnayd ugu weyneed dalka Sacuudiga waxay idin haysaa dhammaan dharka qaybihiisa kala duwan sida duruucdii asliga ahaa baatiyada qaybihiisa kala duwan shaararkii ragga shaalalkii waxgaradka macaawistii ragga cimaamadihii ragga haka tagina halkaas waxaad ka heli doontaan cadaradii udugooda aadka u sareeyay lagu tilmaamay keyboardari uu ku soo jiitay hodan caraftiisana gaartay 5 qaaradood ee adduunka dukaankan waa dukaan dadka u dhaxeeya waa dukaan fiican dad fiican baa jooga wiilkii odaga shaqeynaya labaduba waa is dhaleen waa wiilkii aabihiis waa dad runtii akhlaaq iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo loogu tago runtii dad walbana waa og yihiin waa soo dhaweynaynaa maadaama hawshana waa kala qayb qaadanaynaa soo dhawaada leeyahay dukaanka ku soo dhawaada waa kilo 7 waa Cabdiraxmaan iyo wiilkiisa uma baahnid inaad timaadid waxa kugu filan inaad wacdid xitaa hadii aad joogtid meesha ugu fog 5 qaaradood gudbi dalabkaaga oo kaliya macaamiisha sharafta leh si sharaf leh baa idin soo dhaweynaynaa ciise dalabka hadaad ree Yurub tihiin dalabka baad nasiinaysaan online baa idin ku soo direynaa hadaad dadka wadanka jooga tihiin sicir jaban akhlaaq ku jirto ayaan idin siinaynaa
soo dhowaada magacayga waa Mawlid Cabdiraxmaan Maxamed dhammaan macaamiisheena sharafta leh aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan u diyaarinay macawisihii dharkii shaalalka ahaa barfoonyaashii dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan leenahay ku soo dhawaada dukaankan insha Allah waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan wixii faahfaahin kala xiriir ciwaanada shaashada ku qoran